runtii waxa weeye mashruuc ku soo kordhay deegaankan waxtarna u ah wadooyinka oo caalamka waxtarkiisa koobaad iyo dadka isku socodkiisa ah aad iyo aad bay muhiim lagu yihiin wax qabashada suuqa dib u heshiisiinta iyo bilicda magaalada iyo leerarka iyo saldhigga bariiska intaas oo intii muddo aan ka soo wada shaqaynay ah keenista ay noo keeneen waa mahad celinaynaa iyo shaqadaas ay noo qabteen annaguna waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis inaan siday tahay u fulino oo inagu qabsanto haddii alla idmo dhammaan odayaasha nabadda iyo madaxda kala duwan waxaan ku boorinayaa nabadda hadda hal sano iyo bar bay dhaaftay marka loo eego sidii ahayd iyo marka hadda la eego halkay marayso wax weyn oo farqiya u dhaxeeyo dadkuna ay nafaas iyo naxariis dareemeen marka annaga dhamme inaan ku baraarugno oo ma garanaysaa ka shaqayno ayaan u soo jeedinayaa madaxda kala duwan idinka hortiin madaxda wasiirku horseed ka yahay hortiis meeshaan waxa ka dhacday taariikh cusub shalay baa halkaan isugu nimid gurigii nabadda oo IOM ay waday oo asaguna meel dhaxa ahaa markii lagu guulaysan waayey galmudug waxay soo jeediyeen oo codsadeen puntland ka codsadeen in dhinaca galmudug la mariyo lagana wada shaqeeyo oo dadkii ay ku wada malcaanfaadsanaan reer galmudug puntland aad iyo aad u mahadsan yihiin odayaashooda iyo maamulkooduba daqiiqado saacado ka hor halkan bay soo bandhigeen inay yidhaahdeen guriga waan siinlay waxaan laga dhisay dhinaciinna meel wanaagsan oo aan ku wada shaqayn karnaa nooga dhisa waxa taariikh baa cusub baa bilaabatay wax isquurkii iyo wax isiintii iyo walaalnimadii iyo jawigii inuusan hadda sidii hore ahayn